وهاجاج BBC da ayaa ogaatay boqolaal dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Soomaaliya in dib loogu celiyo Soomaaliya si loo badbaadiyo ama looga badbaadiyo dambiyada mindiyaha. Daraasad ayaa lagu ogaaday in 8% dadkii sanadkan ay soo wajaheen dambiyada mindiyaha ay ahaayeen dad Soomaaliya ka soo jeeda. waalidiin ayaa BBC da u sheegay in aanay arintani ahayn xal kama dambaysa laakiin ay ku badbaadinayaan caruurtooda. dadka naftooda u soo biimeynaya si ay xasilooni u helaan Britain waa meel nabad u ah laakiin khatar ayay wadooyinka UK ku noqdeen bulshadan taasina waxa ay keentay inay dib u noqdaan waalidka Soomaalidu caruurtooda ku dhalatay qaarna ku koreen halkan sida ay sheegeen dalkii ayay ku celiyaan. waxaa jira hooyooyin dhalintoodii dalkii ku celiya iyaga oo sheegay inay halkaas London uga ammaan badan tahay. dambiyada tooreed ee UK heer ayay gaareen dhalintii ka doorbidaysa inay ku noqdaan bariga Afrika. mid ka mid ah waxaanu ugu yeedhaynaa Yuusuf oo magaciisa ayaanu bedelay Kenya ayuu u guuray kadib markii saaxiibkii la dilay. sanadahaasi aan ku jiray dugsiga sare xaaladdu aad bay igu adkayd. markaad aragto dhalinta oo maalin kasta isdilaysa waxaan odhan lahaa ma aha meel ay da'yartu ku noolaato istooriyeynaysa. Yuusuf waxa uu la hadlayay Jabaal Xasan oo Soomaali British ah. Jabaal noloshiisa ayuu bedelay markii isaga oo yar uu u guuray Kenya. marka aad suuqa marayso uma baahnid inaad marba gadaashaada eegto markaasi waxa aad dareemaysaa inaanay cidina ku beegsanaynin marka aan da'daas jiray inaba suurtagal ima ahayn inaan si fudud u tago xaafadaha kala duwan ee London. iminka waxa uu joogaa Nairobi waxaanu caawiyaa dhalinta dambiyada London ka soo yaacday. markan imi nolol bilow ah ayay ii ahayd cidina imay aqoon. waalidkaagu ma aaminsan yihiin inaad halkan ammaan ku tahay? haa 100%. hooyaday waxa ay aaminsan tahay in aan halkan ammaan ku ahay. xubnaha jaariyadda Soomaalidu waxa ay sheegeen in boqolaal dhalinyaro ah ay bariga Afrika ku noqonayaan iyo dalkiiba. waalidku ma inuu sugabaa inta ilmihiisa la dilayo mise waa in ay qaataan go'aanka adag ee in ay ilmahooda ku celiyaan meeshii ay asal ka yimaadeen. iyadoo dadka Soomaalidu ay boqolkiiba hal yihiin bulshada Ingiriiska ku nool qiyaas ahaan boqolkiiba 8 dhalinta tooreeda la geliyo UK Soomaali ay ka soo jeedaan. waalidku ma garanayo siday arrinkan ula macaamilaan ma aha wax soo maray waa dhibaato halkan loogu yimid maalinta tigirka u goystay baa la dilay. waxay tiri waxaa jira wiil Soomaaliyeed oo ku noolaa galbeedka London oo weydiistay waalidkii in la celiyo maalintii tigirka loo jaray ayaa la dilay. jawaabta ma aha laakiin waalidkani qaati ayuu ka istaagay caruurtooda in ay noolaato ayay rabaan waa xaalad ah nolol ama geeri waa in ay badbaadaan. وهاجاج وحوها عبد حافظ عول إسماعيل وربحنتا إن لسه عدسيني هدبا وحي استوديو هاي للجوجا عبد علي موسى وكمده ضدك ودقدقاق جاليد الصومالي دالكن يوكي ودقيسني سوار بحنتن سؤال بدن نوائي كصوبحين مرك هرم حاول السبب دنبيدا من ديها دالكن. أيوة ما سنت أولا سبب جود بنشجع وأنا كوق ضبين يا وقت غير أوجيس فخرجا كوكا إسكولة أو إلمها سفود لوجا عيريا لوكا meelaha la degan yahay oo fakhrigu ku badan yahay deegaanka ay Soomaalidu degan tahay guriyaha councilka oo kale waa qayb uu ka qaataa waxa kale oo halka ka dhashay markaa waalidkoo saacado badan shaqeeya iyo ugu dambeynta xaafadaha dadka fakhriga u badan yihiin oo si fudud ay uga dhashaan burcad xaafadeedyo ama nimanka dadka la gaangiska ay uga dhashaan kuwaasoo ilaa iyo cunuga ay la shukaansadaan oo ay geliyaan badda ay ku jiraan sidaas ay ku abuurmaan waxa marka hore ku abuurmaan. waa gartay sida warbixinta ku maqlayso waxaa jira waalidiin caruurtooda Soomaaliya u kaxeeyay ama dalalka kale ee East Africa ma kula taarintan hortii ay xal u tahay ma caruurta mise waalidiinta in caruurta la kaxeeyo? waxaan u malaynayaa inay tahay xal dan la mooday inay tahay laakiin qofka Soomaaliga ah markuu ka fikiro haddii 2 ama 3 qoys ay ugu badbaadaan ilmahoodu inay meel kala geeyaan waa inaynu ka bulsho ahaan ka fikirnaa ilmaha badan oo halkan ku haray oo markaas si collective ama si wadaraysan aynu u raadinaa waxa meeshan yaala oo ah ilmahan badan oo halkan jooga sida xal loogu helaa midda inaan ka fikirnaa fiican way dhici kartaa reer iyo 2 inuu ugu badbaado laakiin wali dhaqanka reer baadiyaha ma joogno qoysku uu kaliya isku tashan jiray manihin bulshaynahay waxa muhiim ah in bulshadu ay ka fikirto
qof kastoo Soomaaliya halkiisa uu saaran yahay sida kuwa halkan jooga badan aynu ka tashan lahayn. waxaa arkaysaa marar badan in cunug yar oo Soomaaliya la geeyay ilaa 5 dal ugu dambeyntii halkan lagu soo celiyo. maxay arrintaa kordhisay? wallahi hal fiican ma aha, wax ka fiicnaan lahayd in la isku yimaado bulshada dhan isku timaado oo la yiraahdo war arrintan waa arrin wada haystay maxaynu ka yeelnaa. haddaynu Soomaaliya wada celin lahayn mechanism aan la imaan ugu celino, haddii halkan aan ku haysan lahayn sida halkan aan xal ugu heli lahayn. Cabdi ano taada ka raacaya maxaa xala sidee la yeelaya? laba qodob baan u kala qaadi karaa xalka. xal waa mid Soomaalida u yaala, midna waa mid dawladda Ingiriiska u yaala. kan Soomaalidan ku hormaraya waa inaanu marka hore kulligeen inagoo isku duuban aynu raadinaa xalka ilmaheena. waa inaanu ka mid noqonnaa siyaasadda waddanka, waa inaanu ka mid noqonnaa laamaha amniga, waa inaanu ka mid noqonnaa golaha degaamada, waa inaanu miiska lagu go'aaminayo masiirka dhallinyaradeenna iyo ubadkeenna aynu fadhinaa. haddaynaan fadhiina aan ku dhownahay, taas waa halka ku saabsan dadka Soomaalida ah. waddanka UK waxa u yaala waxa ila tahay waxa weeye in la isu yimaado kulli hay'adaha dawladda oo dhan, booliiska, cid walba ay ka qayb qaadato, ka bacdina xal go'aan laga gaaro sida wax loo xalin lahaa dambiyada ku dhaca mindida. Cabdi Cali Muuse aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.